أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. iskusoo noqod wanaagsan walaalayaal meel walba joogtiin. waxaan ilaa waqtigeedin wanaado inta ka bacdi kelmadeyro koob ma raba inaan ila wadaago. Haddii aan rabno inaan hello bulsho caafimaad qabto oo wanaagsan oo toosan, waa inaan inagu isku bilowno oo noqono dad toosan. Waalidka ayaan sheegaya. Marka aad waalid tahay, mas'uuliyad weyn baa ku saaran. Waxa kugu xiran jiilka soo socda oo dhan. Haddii aad tahay waalid toosan, awlaad toosan baad يا محبها دبربارين هدي هاي ولد أنا توسنينا طبعا أولاد أنا توسنين أيا معرفتي دي أو نقنا محصول كاو ويجران دد وناكسن أو توصل أو يعني بقدرة الله تعالى أي عروته كحمادان ويجرته وأنبياء دي قارب ذنب أكو جري أو عروته كحمادان إيه وهدنا أنبياء لأن القرآن كواك كوير حتى مركي أو يسوق النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام مركي أو أديركي كحد ليه وأدير يعني ربي أديركين ودين تساق الله ولايك لينك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء marka iyada hadana taasi jirta hadana inaad adigu waalid toosan tahay qayb weyn ay ka qaadataa caruurtaadu say noqonayaan waxyaabahan aad ka walaayaba bulshadeena waxa kamid ah waalidada qaarkood waxyaabaha ay ku dhaqmaan waxyaabaha rabna in la cirib tiro oo yani dib u dhacadka bulshada kowka ay promote garayaan waalidka Soomaalidu TikTok iyo social media hadaad u fiirsato waxaad arkaysaa waalido badan oo maanta dhan qabiil promote garaynaya oo si qaldan u isticmaalay oo qabiil ku dhigan oo caaya maanta dhan caruur baa u joogta gurigaas hooyada mayga haysata ee caytamisa maanta oo dhan caruur baa hoos joogta yani saameynta ay ku yeelanaysa effectiga ay ku yeelanaysa ilmaha yar dadkan ma dareemi karaan miya haddana waxaan sugaynaa hooyada saa u hadlaysa ama aabaha saa u hadlaya ee maanta dhan caytama ee qabiilka promote garaynaya ee dembiga weyn ku jira inuu caruur fiican helo inuu caruur wanaagsan maaragtay u soo saaro waxaad adigu taanbu ilmahaaguna noqonaya hadaa tahay qof cunsuriya oo qabiilada cunsuriya oo kala qaada ilmo cunsuriya ayaa dhalaysa ilmo xun oo bulshada sunku ah because adigiiba bulshada sunku ah adigiiba bulshada ku maaragtay wax xun ubax yani gubtay ama yani fruit xumaaday adigiiba marka obviously wax xun baad soo saaraysaa hadaan rabno inaan bulshadeena bulsho wanaagsan ay noqoto fadlan dhaqankeena aan wanaajino gurigana aan ka bilowno saanba bulsho wanaagsan lagu heli kara hadii kale generation to generation reerba oo ayaa kale umbana ahaan doonaa dad iyagiyo faqri iyo gaajo iyo wax walba daashideen oo dhulkoogiyo kheyraad ku buuxo haddana gaajo ugu dhimanaya adduunkana ma arkin jahliga ayaa inoogu wacan waxay noogu sii wacana waxa weyn faquuqa dhexdeena aan isfaquuqayno in caruurteena ku barbaarinayno marka halaag bay noo sugan haddii aan Soomaalina halaag bay noo sugnaaday waxa loo baahay in laga baxo daa'irada lagu jiro insha Allah intaasaan maanta in ilaahay waalidow ilmaha soo saaraysa ka fikir oo u tod